الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta annagoo soo qaadan doona waxyaabo muhiim ah UEFA Champions League kulamo ka tirsan waa la ciyaaray kulamo kalena waa la ciyaari doonaa halka aan fiirin doono wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta marka laga soo calaamaday ayaan markaa eegi doonaa haddii markaan eegno waxyaabaha kubadda cagta laga soo calaamaday waxyaabihii ugu dambeeyay ayaan fiirin doonaa iyadoo taageerayaasha reer Barcelona ay ka yaabsadeen qaaradda Yurub kadib markii loo ilmeeyay xidiga lagu magacaabo Lionel Messi Messi ayay markaas soo qorteen taageerayaasha nadiga Blaugrana Messi weli Camp Nou Stadium aad baa loogu xiiseenayaa waana la yaabka marka ciyaaraha kubadda cagta hata weli markaa ka jira haddii aan fiirino Roberto Firmino wuxuu leeyahay aniga waa laga yaabaa inaan ka tago naadiga lagu magacaabo Liverpool waxaan wada xaajood kula jiraa laba naadi ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo Roberto Firmino laakiin go'aankayga weli wuxuu leeyahay ma gaarin xilli ciyaareedkan waa dhamaysan doonaa naadiga Leicester City gabiyaha waxay soo bandhigtay ninka lagu magacaabo Dennis Smith ayaa markaas soo bandhigtay naadiga lagu magacaabo Juventus waxa markaa ka tagi doona ninka lagu magacaabo Leonardo Abandanes ayaa markaa ka tagi doona waa ninka lagu magacaabo Leonardo Paredes ayaa markaa ka tagi doona wuxuuna markaa ku laaban doona naadiga PSG ayuu dib markaa ugu laaban doona ayaa ninkan markaa la leeyahay ninka lagu magacaabo Ben Chilwell wuxuu leeyahay aniga waqti dheer ayaa la sii joogi doona naadiga lagu magacaabo Chelsea wuxuuna heshiiskiisa markaa dhacaya 2027 ayuu markaa ku eegay xidiga lagu magacaabo Ben Chilwell haddii aan fiirino naadiga lagu magacaabo Manchester United Erik ten Hag wuxuu leeyahay naadiga Newcastle United weerarkeeda aad buu adag waana naga yaabsadeen ayuu markaa leeyahay waa markii ugu horeysay markaa uu qarinayo tababaraha naadiga lagu magacaabo Manchester United Erik ten Hag haddii aan fiirino naadiga Benfica waa ay badisay ninkii Lukaku wuxuu leeyahay yaan ku qaniinin ayuu leeyahay xidig markaa ka tirsan naadiga lagu magacaabo Benfica labi eber ayaana markaa looga badiyay naadiga Benfica Lisandro waa ninka lagu magacaabo waa Lisandro Martinez iyo sidoo kale xidiga kale ayaa markaa wacdara ka dhigayay naadiga lagu magacaabo Inter Milan haddii markaa aan fiirino waxyaabaha kale naadiga Napoli caawa waxay wajihi doontaa AC Milan iyadoo Talyaaniga lagu jibiyay wala isku jibiyay reer Talyaani waa shaxda markaa baqtoonasiibka kamid ah qaaradda Yurub UEFA Champions League markaa la isku dhufanayo qoratuurka haddii aan fiirino Pep Guardiola wuxuu leeyahay aniga Haaland ayaa iga yaabsaday waana xidiga kaliya ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo haata markaa bedelay waana ninkani wuxuu aad buu u muuqdaa xilli ciyaareedka waan fiirin doonaa goolasha iyo taariikhda uu ka dhigayo qaaradda Yurub ninka lagu magacaabo tababaraha naadiga Real Madrid wuxuu leeyahay haddii sanduuqyada la furo naadiga Real Madrid waa iska qancaysa wuxuu leeyahay qaybta taariikhiga ee qolka haddii la furo koob iyo haddii ay qaadin naadiga Copa del Rey haddii uu dhaafo haddii koob kale ay qaadin wuxuu leeyahay naadiga waa iska qanacsantaa laakiin waxaan ku dadaali doonaa in koob marka aan qaadno ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo waa Carlo Ancelotti Theo Hernandez wuxuu leeyahay waxaan doonayaa in naadiga AC Milan waqti dheer aan sii joogo ayuu leeyahay aad buuna markaa u duceysanayay ninka lagu magacaabo waxaa leeyahay waa Theo Hernandez haddii aan fiirino waxyaabo kale ayaa markaa jira ninka lagu magacaabo Enzo Fernandez aad buu naadiga Chelsea ugu fikiraya qaab ciyaareed wanaagsan oo ku soo bandhigo halka la leeyahay naadiga Chelsea xidigaheeda aad bay markaa u dhaarsan yihiin Rodri gool ayuu markaa ka dhaliyay Bayern Munich waana markaa ka yaabsaday xalayto laakiin waxa ugu daray ninka lagu magacaabo Bernardo Silva oo aad ugu qeyliyay Erling Braut Haaland xilli ciyaareedkan 51 gool ayuu markaa maraya qaaradda Yurub 39 ciyaarood oo xilli ciyaareedkan markaa ka soo muuqday qaaradda Yurub Erling Braut Haaland waa ka yaabsaday bab wuxuu leeyahay waa machine waa nin aan caadi ahayn waxyaabo badan ayuu ku tilmaamay maadaama faalo fara badan markaa uu ka bixiyay Haaland waa fiirin doonaa gabiyahan laakiin naadiga Liverpool ayaa u waarinaysa ninka reer England ee lagu magacaabo Jude Bellingham waxayna markaa ku doonaysaa 130 milyan ayaa markaa leeyahay aad bayna qaali ugu soo dhigaysaa isagoo qudhiisa wuxuu leeyahay saddex ciyaaryahan oo qadbada dhexe naadiga sida ay ugu baahan tahay waa la yaabanaay waxa ku jirta naadiga Real Madrid Manchester City PSG Man United aad baa loo ciirsanaya aad baa loo xiiseynaya ninka reer England haddii aan fiirino Erling Braut Haaland wacdaraha markaa uu ka dhigay qaaradda Yurub haddii aan fiirino 45 gool ayuu marayaa xilli ciyaareedka haddii aan markaa kala saarno goolasha markaa uu dhaliyay
waxaa leeyahay Champions League 34 ciyaarood waxaa leeyahay 34 gool ayuu marayaa 26 ciyaarood oo markaa ka soo muuqday haddii aan fiirino sidoo kale Premier League-ha 30 gool ayuu marayaa 27 ciyaarood oo markaa ka soo muuqday ayaa markaa leeyahay 11 ciyaarood oo ugu dambeeyay ayaa leeyahay Erling Braut Haaland 11 gool 7 UEFA waxaa leeyahay UEFA Champions League 7 ciyaarood kaliya ayuu 11 waxaa leeyahay xidigani 11 gool ayuu dhalanayaa ayaa leeyahay waa 7 UEFA Champions League ciyaarood ayaa leeyahay xilli ciyaareedkan ninka caadi maan waxaa markaa loo soo qorayaa 11 gool ayuu markaa dhalinayaa ayaa leeyahay 7 ciyaarood xilli ciyaareedkan ayaa markaa leeyahay UEFA Champions League xidiga lagu magacaabo Erling Braut Haaland ninka lagu magacaabo Marcel Sabitzer wuxuu leeyahay aniga wax kasta waxaan huri doonaa naadiga Manchester United aad baan u jecelahay waxaan qaadan karo ma ahan in naadiga markaan si dhaqsala kaga laabto ayuu leeyahay waa in wax badan aan u qabtaa ayuu leeyahay naadiga Manchester United Thomas Tuchel microfonkiisii xalayto Bayern Munich lagu soo dhaweeyay wax uu soo kordhiyay markaa ma jiraan caawana kulamo kale ayaa markaa la sugi doonaa ninkii Joya Falakis aasanka ayuu taagayaa Vinicius Junior ayaa isaga qodhiisa wuxuu leeyahay maxaad ii fiirinaysaa waa laga yaabsanayaa marka waa la isaayaa caawa AC Milan iyo naadiga Napoli naadiga Chelsea iyo naadiga Real Madrid waana ciyaaraha markaa la wada sugayo ayay markaa ka mid yihiin caawa UEFA Champions League wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagtana waa naga inta nabadgelyo